xilli weli lagu guda jiro bisha Rabiicul Awwal oo ah bishii uu dhashay Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa munaasabad ballaaran oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer Guraceel ayaa maanta ka dhacday degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. isku socodkii gaadiidka iyo goobihii ganacsiga magaalada ayaa albaabada maanta loo laabay xilli guud ahaan shacabku ay ahaayeen kuwa farxadu ay ka muuqatay. boqolaal ka mid ah shacabka xaafadaha Dalsan iyo Tawakal iyo gabdho ay ka muuqatay astaamo ay ku muujinayaan xubbiga Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa dabaaldega qayb ka ahaa maanta. waxaa sidoo kale sanadkan dabaaldega mawlidka qayb ka ahaa geel iyo fardo lagu hardhay magaca Nabi Muhammad. cutubyo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka gobolada dhexe ayaa iyaguna soo bandhigay gaadaka ciyaar ay uga qayb qaadanayaan ku guda jirka bisha mawlid. ciidamada ayaana isugu jiray Bambey, booliiska, nabad sugid, military iyo gaadiidka dagaalka ayaa socod dheer ku maray laamiga, waxaana ciidamadu caleemo qoyan u lulayay shacabka degmada kuwaas oo haruurada ka muuqanayay. gabagabadii ciidamadu waxay gaareen fagaaraha Xurriyadda Shimbiroonshe halkaas oo ay horey ugu sii sugnaayeen qaybo kale oo shacabka ka mid ah madaxda sare ee maamulka, saraakiil, gudoomiyaasha degmooyinka iyo shaqul baladka degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. ugu horeyn munaasabada waxaa lagu furay arday anaashiid ku amaanayay Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. الكرام شرفاء تنقل المختار من صلب إلى رحم صفا. gabagabadii waxaa shacabka la hadlay shaqul baladka degmada Guraceel Sheekh Maxamed Jaamac Yare iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe Saadaq Sheekh Yuusuf. kelimo yar inaan ku soo koobo tan labaadna mar haddii ilaahay itibaaca nabiga faray dad muslimiinna aan nahay intaana isugu timid nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam. fadligu waa kitaabka ilaahay ee diinul furqaan, raxmadduna waa nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam ee markaa ah acdamu nicmatin ubrisad lilcaalam, nicmada ugu weyn ee caalamka loo soo daahiriyey sida allaba leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. waxaa markaa nala gudboono waajib nagu ah qof la arkoo naga mida dukuuran wa inaathan, shuyuuq iyo shabaaba, ilaahay inaan markaa xasuusanno oon ku taqwadiisa laasimno oo nabigeenna xubbigiisa aan laasimno calayhi salaatu wasalaam. nabiga jacaylkiisuna waa raaciddiisa. wa min calaamaati xubbi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nasru diinihi waاdabu can shariicatih. waqaala tacaalaa aydan wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin. sadaqa allahu alcaliyu alcadiim. ikhwaanii fi اllaah, maanta waxaan iskugu nimid weynaynta nabigeega dhalashadiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam. farxaddaas oo ilaahay uu noo sheegay oo uu raxmaddu noo soo diray uu ahaa. ilaahay fadligiisa waxaa ah dadka gobollada dhexe khaasatan degmada Gurceel inay noqotay meelaha shacaartaasi ay ugu weyn tahay ee nebiga farxaddiisa iyo weynayntiisa ku qaaday koobka. waxaa la yidhahdaa koob baa lagu qaaday kubadda, laakiin waxaa ka muhiimsan in maxabbada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo diinta difaaceeda koobka lagu qaado. degmadan iyo dadka gobollada dhexe khayr allaha siiya waxay noqdeen dadkii ugu horreeyey ama ugu weynaynta badnaa shicaarka lala yimaado. ilaahay jiza iyo khayr ha ka siiya ayaan leenahay. si kastoo ay ahaataba Guraceel waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu horeeya ee Soomaaliya ee sida weyn looga weyneeyo dhalashada iyo weynaynta bilaha islaamka ku weyn, xilli ay jiraan degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo fursaddan aan haysan. Ibraahim Xaasho Cusable, Somali Cable, Guraceel.